رحيم halkan waxaan ka hadlaysay adeega Yaasin Caraale Axmed waxaan u sheegayaa dadweynaha adduunka daafihiisa dacaladiisa jooga albaab kastoo reer Sheekha waan garaacay bay tiri intaasoo reer Sheekha ayaa maanta garabta halka taagan albaab ay garaacday maxkamadda Hargeysa ka tiri albaab ay garaacday oo reer Sheekha oo ku yiri nimcay laguma dhalin been bay ku sheegtay maxkamadda ay leedahay adeeg ma yiman halay soo qabto de waxna ma dirin waxna ma xadin nin durbaan qaatay ilaaq dalbay marka horeba daaniga ay walaashayna laga qaado dhiiga hayda sida imikana aan halkii baan taaganahay dhiigii hayda sidaha diyaar baan u ahay hada ma garatay anu qof Allah raxmaanka ku xidhan baanahay ya Allah raxmaanka xaqna waan ku taaganahay xaqi waalidkay baan raadinaya goor ay noqotana xaq baan ku taaganay nimco horena waan uga guulaysto islaamka adduunka daafihiisa dacaladiisa wuxuu ma joogtay aanay raacday xaqa iyo guushuna aanay soo hoyanaysa hadii alla ka dhigo sida nimcaha ku samirto dhammaan dadweynaha reer Sheekh haweenka reer Sheekh ee halka fadhiya waxa ay galabta isugu soo baxeen oo ay halka isugu yimaadeen dad qadiim ah oo qadiim Sheekh ku ah oo ku culus oo la yiraaho reer Yaasin Caraale ilma Caraale yibir oo nimca Yaasin Caraale iyo adeega Yaasin Caraale oo ay adeegi naga dul oyday oo ay leedahay walaashay waxay tiri Caasha Diiriye ima dhalin Caasha Diiriye Axmed iyo Yaasin Caraale yibir halkan waxa maanta aanu ku wadnaa goob joogii dhalashadii nimca Yaasin Caraale qaafa Maxamed Samakaab oo arkaysaan da'deeda iyo wajigeeda ay ag fadhida ayaa ugu horeysa umushii ay ku booqatay Caasha Yaasin anagoo biyo loo shubayo ayaa dumari yimaadeen waa yidhaahdeen waxa umushay Caasha Diiriye Samatar wax loogu qasaaraa baa la waayay biyihii baan u kaxeeya markii aanu qadooyinkii karsanaanu u tagnay waxayna tidhi yaa Caasha iska waran waxayna tidhi ooyo nimca Ilaahay baan ku jiraayo nimcaan dhalay waan fool badin jiraayo nimcaan hooyo dhala waxaan garanayaa iyadoo 3 jir ah ama 4 sano uga gashay oo hooyadeed xambaarto jaarna waanu ahayn in yar baan isu jishay oo ay daadahaynayso oo ay sido ayaan anagu garanay waxa weeye adeega Yaasin iyo nimca Yaasin iyo Awil Yaasin walaalay ahaayeen aabahood halkaas biraha ugu tumi jiray Caraale yibir buu hayo nin caano la yaqaan buu hayo caan loo yaqaan buu ahaa saddex caruur dad dhintay kala dhixiyeen isku dhalashay xigay bay hayeen gabadhaas waa bay qaadi jirtay walaashay dhabtay ku hayn jirtay markay shaqaysay way ogeyd adeegi annaguna dad saaxiiba baanu ahayn nimca Yaasin oo isku wanaagsan baanu ahayn reerkooda way ku faani jirtay qabiilkooda way ku faani jirtay kamay xanaaqi jirin qabiil kale hadad ku sheegto nimca Yaasin waxay oran jirtay maxaad yeesaysaa reerka jiray aan jiray baan ka dhashay muslimka baan ka dhashay maxaad yeesaysaa maxaad dhaantaa bay oran jirtay haddaba nimca Yaasin malaade waa la maydho waxaan u malaynayaa hooyadeed iyo aabaheed wax adduunka ka jeclaa lama ogeyn iyana way jeclaayeen waxaan nimca Yaasin maydhay ay u tiri Yaasin iyo Caashimay dhalin ta kale ee labaad beenta kale sheegtay tiri Sheekh baan albaab kasta garaacayo dadkii qof isheega waan waayay nimco Ilaahay u soo noqo oo waalidka u soo noqo oo dadkii ku garanayay waa kuwa cadeeyay imka maxaan ku dhahay tii biyaha lagaaga soo qaaday biyihii maxaan ku dhahay darabta lagu maydhaayay waa taas way nool yihiin in kala badanna way nool yihiin shaashada la dhex qaadayaan nimco Ilaahay toobadkeena waalidka u soo noqo ka istaghfirlaysa dambiga aad gashay anigu inuu baan odhanaya waxa weeye nimca Yaasin annagu dadkii dad ugu xigay baan ahayn albaabadan ay leedahay waan garaacayna nimco been bay sheegaysaa may garaacina naba noomaadima miyaad noo timi nimco dadkii dadku ugu xigaanahay miyaad noo timi Cadar Maxamed Cilmi baan ahay noomanaadiman been baad sheegaysaa bisinka qabso Ilaahay ka yaab kan waxaanu ku cadaynaynaa shir saxaafadeedkan ku qabanay nimca Yaasin Caraale Axmed oo gabadh deegaanka Sheekh u dhalatay oo aad u jecelay marka hore nimcay waanu ku salaameynaa waanu ku jecelay nimcay maantana waanu ku jecelahay waxa weeye nin baa yidhi abtirsiima ma gurto Salebaan Arab weeye ina Yaasin Caraale Axmed baa aad tahay Caasha Diiriye Samatar baa ku dhashay nimcay dadkii waaweynaa iyo dadkii maalimka qadiimiga ahaa intiiba waa kuwaasoo way marag fureen Xabiiba Jaamac Cilmi oo iminka Hargeysa joogtood garanaysa maalintii aad timi Sheekh aad timi dawaad ogay markaad oyday ay kulahayd nimcay ehel baynu nahay akhwaan gaaraynu nahay
ardaagii hooyada anaa kuu sii fadhiyey haddaan lagu soo dhoweyn miyaa lagu dhaafaya fargaldahabaad farxaddii ku bixisa nimcooy waanu ku jecel lahay marraa waaxid noo soo noqo baanu ku leenahay walaashaana ha ka oohinin noo soo noqo reer sheekh aad bay kuu jecel yihiin nimcooykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waan yaabanahay yaab ayaan ku maqanahay waxaan la yaabanahay waxaan ahay anigu ardaydii nimco yaasiin soo barbaarisay ee iskuulka u dhigi jirtay nimcooy wali waxaana ilaaway sixii sidaa intuu u dheeraa dabadu saa u soo qabloocay ayaan kugu xusuustaa wanaagaagii baan kugu xusuustaa qofan jecelay baad ahay qof wanaagsan baad ahay qof lixina baad ahay anigu mar walba adeega waxaan ku dhahaa nimco malaa si kale noqoto dadka yaaban baanay waayo wanaagaagii ma garanaysaa markii aad na bari jirtay waxa kacaankaanu ahayn eed heesaa na bari jirtay ma xusuusataa eed heesihii aad na bari jirtay sida wanaagsan sida jacaylkaad noo qabtay wanaagaad magaalada u qabtay jacaylkii laguu qabay ma tihid gabadh dhalashadeeda dafirtaa waxaan ku leenahay ilaahay ka baqo walaasha adeega xaq bay ku taagantay anigu iminka gabigayguba saasaan u galiiliyoonaya waxaan la yaabanahay oo yaabaan ugu maqanahay nimcay waxa ku bedelay ilaahay ka baqo soo noqo waa lagu jecel yahay qofku wuu qaldamaa bini'aadankii waad qaldantay shaydaanka iska naaro shiikh noogu kaalay gamco furan baan kugu soo dhawaynaynaa sidii aan kugu soo dhawayn jiraan kugu soo dhawaynaynaa soo dhawow nimcooy waanu muraaqoonaynaa nafti baan hayso waa yaabanay nimco yaasiin hooyaday saaxiibadeed bay ahayd qofaan garanayaa bay ahayd ku garaadsaday bay ahayd ku caqliyaystay bay ahayd idaadahayn jirtay bay ahayd hooyadayna la saaxiib ahay nimco yaasiin ilaaheedii abuurtay ha ka baqato oo ha u soo noqoto walaasheed iyo waalidkeeday ceebaysayba ha u soo noqoto anigu ina yar baan ahaa iyaday kaxaysan jirtay waa ta adeegeen 5 tallaabaan isu jiraa labada iyada guri dadkana way noogu jeclay iyadana waa noogu jeclay yaasiin caraala dhalay yaasiin caraala axmed baa dhalay caasha diiriye samatar baa dhashay dad taaro helabaanu ahay habeenkana leeriyay riwaad ii kaxaysato aqalkoodaan seexanayay yaasiin iyo caasha dhalay inay gaftana xaq ma aha awowgay xaaji jaamac iyo aabaheed awowgayna wuxuu miisi jiray maxaadadu iibin jiray aabaheedna biruhu tumi jiray iyaalka marka noo beysteenka ka doonana waan ka soo furan jiray nimco anigu si aan ummadda kaleba u garanayn baan u garanay dadka waaweyn mooyo dadka yaryar nimco walaashayabay ahayd walaasheed baanu la hadlaynaa walaasheed ay dafiraysay ooyeysa habeen iyo maalinba ooyeyso nimco ha u soo noqoto walaasheed iyo aabaheed iyo hooyadeeda qabriga ka kicinayso ay tiri imabay dhalinay u xambaarisay nashaxadda nimco ay ka soo noqo walaalo waadiga cabdiraxmaan cabdi maalintii u dambeysay ku yidhi adduunyada inanta ayara gaasga jir waan jecelay cabdiraxmaan oo ma nooshahay waxa weeye nimcooy ummadu waa wada caynka qof walba qofkii u yaqaanay wuu u yeedhaya na walaal toobadkeen oo ilaahay u toobadkeen oo islaamka u toobadkeen oo walaasha u toobadkeen oo walaasha oo inta aad ka hoysatay mabay dhalin reeraan ku dhalin dalbatay nimco waa macallimadeedii waana gabadhii ugu horreysay ee iskuulka uulada ay qortay standar 1-keedii nimco yaasiin caraale aad buu u jeclaa break timeka maalmaha ka mida waxay tiri horena waan u sheegay ordayad iyo Saynab Cali Xuseen oo wada fadhiya iskuulka qasabka hortiisa ay tiri ord saytuun iyo door oo dhidu weerax xataa saytuunkii dareysoo dhib waa soo qaaday nimco wax gabadhii ugu tiri baahid na magaca Musaan Faadima Sahra sidii kala reeb labada magac oo mid uu la bax nimcooy shaydaanka iska naar bisinka qabso awliya ilaahay awliya tasaalixiina ayaa ku dhashay yaasiin caraale mu'min buu ahaa umana qardoobo loo mana quuri kara yaasiin caraale in la yiraahdo tuug buu hay wax buu soo xad nimcooy 80 jir baa tahay cimri tagayna ceeb laguma sagootiyo anigoo duulada ay qortay ayaa 50 sanadood madaxa la galay adiguna hadalkaaga badaa nimcooy way joogaan ilma kaahin faras way joogaan ilma liibaan yare way joogaan ilma yaasiin yare way joogaan asxaabtii sheekh oo dhami bal cidaad u timi ee ku tiri nimco garan mayna maalintay dhalatay hal hele sheekhkee dawladda Soomaaliland waxaan leenahay maxkamadaasi inanta dhiyanayga waa u diyaar maalinta Shabcaan maanta waa 30 maalinta bisha Ramadaan dhamaatay 6 shawaalka laga soo noqdo mawduucu uu daayo adeega yaasiin anagoo galbinayna ayaanu maxkamadda keenaynaa nimco horta diyaar garowdo waa ta koobaad sheekh way ka go'an tahay taasi waa ta labaade nimco yaasiin waxaan u sheegaynaa waxay tiri waa loo yeeray haddaad bajad iyo lacag isticmaalayso ilaahay wadsigiisa ayaa adeeg isticmaalaysa annagaana garab taagan mana la waayayo xaqa ilaahay dulmiga ma qaado xaquna wax qarsooma ma aha nimcooy haddaan yaasiin caraala ku dhalina
halkaasaad ka bixiyo waa lagaa waayi dawladdana waxaanu leenahay labadaa ruuxee kala laalaada ha la kala furto oo dawladdu cadaaladda ha geyso ha u kala qaada dhiigga deedna nimco qoladay sheegaysa ha noqoto markaasaanu isu leenahay